دهيان قاعد عيب يقول صيان مهديقة هاي إن شاء الله وحنا رجيني هنا وداركتين مهديقيو محالا عكالي قاعد اسكتي منه فردائيو وحمو تسافيه وحي آوي اسكالو ويني ساي بس اسكا ومدى الراعي ساي تنكلا جرمالك محال كاسو بحيي محاو وسو بحيويسي تركي ميلاس محاو وسو بحيويسي وسو منويسي nabiguna magaciisa waa sheegay inuu maxamed ibn cabdillaahi la yiraahdo magaciisa waa magacayga oo kale magaca aabihina waa magacayga oo aabahay oo kale tuu yiri inuu isaga arbeedkiisa iyo duriyadiisa kamid noqon doono taban faadimo ma wax ka farcamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داوضيال ميلو بوجوكتان كونو سو دوادا channel كان كورنتو ستوديو حليدا نو كله حنديدين سو قطا حدبا قضب aan isleeyahay aad ba loo hadal hayaa magaalada muxuu ahaa ii sheeg Nairobi iyo goobaha ay Soomaalida ku badan yihiin Soomaali hadaan nahay fadhi ku dirirka aad iyo aad ayaan ugu wacannahay waxa weeye ugu dambeeyay aad loo hadalay in lagu jiro calaamadii aqoon zamankan ay soo muuqdeen hase ahaatee nin baa soo baxay wuxuu leeyahay waxaan ahay mahdigii la sugayay ninka waa Soomaali waxa uu ka soo baxay dalka Jarmalka sida aan u maleynayo aad baa loogu hadalay baraha bulshada runtii waxyaabo badan oo waxa jiro qatar gelinaya diintaada iyo dadnimadaada waxa jira nin aan aad u taageero marka laga hadlayo aalada TikTok reactionada la bixiyo nin ay dhahaan Burcaawi iyo nin ay dhahaan Ciidruus waa labada nin oo aad aan ugu xiranahay marka laga hadlayo reactionada iyo waxyaabaha faniga aad bayna runtii iga qosliyaan waxaan ku arkay ciwaanka Ciidruus oo reaction ka bixinayo ninkan oo isagu sheegay inuu yahay mahdiga arimaha diinta islaamka iyo arimo badan oo la xiriira mahdiga waan dib dhigan doonaa balse marka ugu horeysa idinkuna ila qosla oo ila daawada waxyaabaha ninka uu ku hadlayo iyo reactionkii la siiyay iyo balceebtii laga bixiyay هديات بني سلام الدمانتين ألكم حيث سلامي محمد وحن في دولي هريك شيئين عن هاي مهدي سوء بحياة فرسمانك تبوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ها المهدي المنتظر إما كنت تكتب تيسي بشأنه وتكيه لسان إلا يوقتها كدب انت الله سبحانه وتعالى يتسوين عن مهديك يكور بالله كنت أبو بلا نوحا كنت كدب وير ربي السعودي مسكتينا إلهي بسيك بالبالية الحمد لله إلهي باني محضر لم يرسل ناطي ما أنت عارفون حكا هذا يا دهيان قاعد عيب يقول صيان مهديقة هاي إن شاء الله وحنا رجيني هنا وداركتين مهديقيو محالا عكالي قاعد اسكتي منه فردائيو وحمو تسافيه وحي آوي اسكالو ويني ساي بس اسكا ومدى الراعي ساي تنكلا جرمالك محال كاسو بحيي محاو وسو بحيويسي تركي ميلاس محاو وسو بحيويسي وسو منويسي oo timo iyo waxa soo beerowaysi meesha waa qaal 2,000 waaya timo beerasho lagama bixi karay kala niyo anaga mahdiga waxa suuleeyay min caraba oo dheer oo inta soo fiid 200 fiid oo timo dheer leh oo seefo wato waxa anaga filayay maxay tahay mahdigan Soomaaliga oo meelaha iska warwaray iska soo dhacay مهدي سيديس ماتا واسكسو هربرتي واسكسو عررتي سيعود جرين وعنا شيء ما أنا نوالي نلو مشيقين أنا مهدي تيك توك كسو تحبحا او نوشير قلايا فلوسية شيشير قلايا لايك سارة إنو مهدي ندايو نلو مشيقين آخر سمان كي كسو هرمرتنيو اسكالله بعد ذلك الدنيا تقانا مع معيشة دي ويعتك واجه مهدي سحلها حطاتها ما فلسطين تكتي دباتوين كو برقلين كلوها اي قال يدلمي كو هيان ما كعيريس هالكاس كدقالين حاجر ملكو وضح جيريني ما كعبدي اكو تارا جرم قاعد ومتكرر تقنين والله صباحة الودلة ميراها دي الوقوة أنا مهل المنتظر كاغما أنا قفية ومدى ميلك فريسو الدنيا تقانن معها إلههم دارتين عيشة دي وقت كاتب حبس سيجارة حتى عدكو داري سمر
xaraarada ha u dhiman iska laaba magaalada والله بالله تعالى horta legend Idris aad buu iiga qosliyaa runtii oo nin aad fani u ah meelo badan oo aad wax ka filaynay wax ka tusinayaa ninkan jarmalka wuxuu ka dhax qabanay waa la weydiiyay cid la sugayay waa loo sheegay adduunyadu inay xaaladu aad u cakiran tahay aad u adag tahay cid xabad sigaar ku siinaysa ma lahan oo loogu soo gabagabeeyay runtii mahadigu way jiraan kuwa badan oo shiicadu iyo dad yow kale ay sheegtaan diinta islaamkana waa loogu sheegay kan la sugayo saxda ah cidda uu yahay inuu yahay Quraysh muxuu ay sheeg cidda uu ka sii yahay in nabiga uu ku magac yahay aabihi isku magac yihiin oo la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi intaas diinta islaamka loogu sheegay oo diinta islaamku wax badan ayay ka sheekaysay kutub waxa jira kaliya aakhir zamanka laga hadlayo mahdigana wuxuu qayb ka yahay calaamadaha aakhir zamanka astaamaha lagu sheegay waxa kamid ah ninka ugu horeeyay ee arka marka uu wax weydiisto in uu faraqa u buuxinayo ilaa inta uu awoodo inuu qaado ayaa la siinayaa wuxuu isku soo gaari doonaan masiixi dajaal iyo muxuu ahaa isha calaamado badan markay uu yimaado wadanka cadaalad ayuu ku soo adduunka oo dhan oo cadaalad ku soo dabaali doona barwaaqo sooran ayaa la gaari doona bal mahdiga ay diinta islaamku tilmaamtay hay nooga waramo Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo inoo sharxaya mahdiga iyo sida lagu aqoonsan karo iyo xilliga uu soo baxayo iyo astaamaha diinta islaamku ay tilmaamtay marka way dhici kartaa waqti kasta inuu soo baxo wayna dhacdaa marar badan dad inay sheegtaan aniga mahdigii ah kaliya badan baa la ii soo diray maalmo dhaweyto dad kala duwan oo mahdi sheegtay nabiguna magaciisa waa sheegay inuu Maxamed ibn Cabdillaahi la yiraahdo magaciisa waa magacayga oo kale magaca aabihina waa magacayga oo aabahay oo kale tuu yiri inuu isaga arubeedkiisa iyo duriyadiisa kamid noqon doono طبعا فاطمه wax ka farcameen duriyada Faatima inuu noqon doonana waa sheegay laakiin wax sanadana ma xadidin waqti ana ma jaangoynin wax uu sheego intaan garanayo calaamad gaar ah isaga ka muuqato oo astaantaas isaga ka muuqata la yirina aan magacyada iyo tilmaamaha guud ahaan oo dad badan qaadan karaan hadda ma xasuusto magana laakiin qofka hadduu rabo inuu faafahinteeda kutubta ashraatu saaca qiyaamada ka hadashay faahfaahsan buu ka heli karaa لكن هكود هذا وحى الصحيح السجنادة إنه فيريو سيدا كتاب أشراط الساعة يوسف الوابل وكالاتية كوا بدنا ولا قرايو رم يبان بأروريين واجران دور رب واحد كاسف فا يوسف الوابل لا موسوعة ليلة موسوعة أشراط الساعة موسوعة المهدي أو موسوعة لبدا مجلدة منا وحي الصوص هذا وحي ضعيف وقرنته بويدنا كفيرين كرب بالله التوفيق وهاجاك صاحب يالكاسي وحو ahaa Sheekh Maxamuud Shibli oo inoo sharxayay astaamaha lagu garan karo mahdiga la sugayo runtiina dad badan oo dambaabay ayaa jiro dad badan oo muxuu ahaa shaqaale u shaqeeya ayaa jiro muxuu ahaa waayahan dambana waxa aad u soo baxayay Soomaalida naftirkooda inay muxuu ahaa dal Qureysheed ay yihiin oo Carabta ay ka yimaadeen asalkoodii hore arrimo noocaas oo baraha bulshada la isugu heesaystayna uu jiray laakiin wuxuu ahaa sheeg mahdi la sugayo buu ku jiraa saaxiibayaalo raalli ahaada dambina ha gelina diinta islaamka muxuu ahaa sheeg wixii qatar gelinayo walaalayaal iska ilaaliya dad badan oo Soomaali ah oo dambaabay waa la arkay diintooda halis ay gashay waa la arkay kaliya waxaan rabay inaan usoo qaato inaan idinku baraarujiyo kelmadan Sheekh Shibli reactionka ninkooda Idris fanigaan inaan soo qaato tan iyo kulantideeni dambe inta barnaamijka xigaan dib ugu wada kulmi doono Cabdiqaadir Koronto idin leh sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh